waxaa jira inta badan saddex qodob oo aad u saameeya wax soo saarka qofka iyo runtii kambanigaba. inta badan waxaan rabnaa inaan runtii wax soo saar sameyno, performancegeena aad u sarreeya la rabaa. laakiin saddex arrimood baa runtii ka qayb qaata in wax soo saarka uu kor u kaco iyo inuu hoos u dhaco, kolba sidaad u isticmaasho. kow midu waa waqtiga iyo sidaad u nidaamiso oo qodob muhiima ah. waqtiga markaan leena waxaan la jeednaa haddii aad waqtiga si fiican u nidaamiso, nidaaminta waqtigana waxaan ula sii jeednaa adigu inaad is nidaamiso. waqtiga ma nidaamin kartid, gacanta inooguma jiro waqti. 4 saacadood buu qofkaas haystaa, nin taajir ah, nin faqiir, qofkaas 4 saacadood baa haystaa. laakiinse waxaad nidaamin kartaa oo maamuli kartaa waa naftaada. marka waxaa lagu leeyahay kolba sida aad u maamusho waqtiga aad isticmaalayso ood naftaada u maamusho ayay noqonaysaa inaad kolba ka faa'iidaysiga waqtigaaga. sidaa daradeed waxaa ugu muhiimsan marka waqtiga laga hadlayo iyo nidaamintiisa laga sheekaynayo, kow waxaa ugu muhiimsan inaad waqti u samayso howlahaad qabanayso. howlahaad qabanaysa qaar waa daruuri oo waa waajib ku saaran. tusaalahaan kale waa shaqadii oo kale subaxdii ama waa waxbarashadii subaxdii ama geli dambe ah. marka waqtigaas already wuu xadidan yahay, isagoo hadal ma laha. su-aashu waxay ka taagan tahay waqtiga inta kale soo hadhay. intaa kale soo hadhay sidaad u maamulaysa. halka lagu kala duwan waa halkaas marka waxaa laga rabaa inaad runtii dejiso waxyaalaha aad rabta inaad qabanayso. wiigan maxaad qabanaysaa, maalintii maxaad qabanaysaa, bishii maxaad qabanaysaa. taa marka laga hadlayo daba waxaa ugu soo muhiimsan weliba time management marka laga hadlayo inaad ogaato waa maxay waxa kugu muhiimsan ee aad rabto inaad qabato. waxyaalahaaga kugu muhiimsan, awlawiyaadkaaga ah, daruuriga ku ah ee inaad qabataa waa maxay. waayo maanta leel haddaad ku mashquusho waxaan muhiim ahayn ood ilowdo wixii muhiimka ahaa, maxaa aakhirka kuu soo baxaya wax badan inaanad qaban. sidaadee dadku waxay ku kala duwan yihiin taamka marka la maamulo laga sheekaynayo waqtiga. qofkii inuu koohu waqti u sameeyo waxuu qabanayo ood xadido waqtigaa waxaasan qabanaya. weliba waxa ugu fiican inaad ku xadido salaadaha. bacda duhurka waxaasan qabanaya, bacda casarka, bacda maqribka, bacda cishaaga, bacda subax, inaad qaabka u dhigta aad u si fiican. waayo way sii cadaanaysaa. markaad saa u xadido waqtigii waxaad qabanaysay waa inaad gelisaa waxyaalaha kugu muhiimsan ee aad tahay inaad qabato markaas. waxaa kaloo iidan muhiim ah waqtiyada naftaadu ay soo jeeda ee ay runtii ay u firfircoonidu ay ku jirto inaad iyadana geliso waxyaalaha kugu muhiimsan ee aad rabta inaad qabato. waxaa kaloo muhiim ah waqtiyada aad soo jeedo ee firfircooniga aad leedahay inaad geliso waxa kugu adag. waayo sheega kuugu adag haddaad ku bilowdo subaxdii ood qabato, naftaadu nafis bay dareemaysaa, waxa ka dambeeya dhan waa ku raaxaysanaysaa. laakiin subaxdii wax yaroo fudud haddaad ku bilowdo oo kuwii cusle ay ku harsan yihiin, naftaadu caajis bay gelaysaa. saa daraaddeed buugaga ugu fiicana laga qoray runtii inaad ku bilowdo waxa kuugu adag. waxaa ka mid ah buugga la yidhaahdo Eat That Frog, yacni cun raha cun. macnaheedu waxaan raha ina cuntaa waa adag, qof kasta way ku adag, raha ma cuni karo. laakiin qofka hadduu cuno macnaheedu waa maxay? wax kastaad cuni karta. marka waxaa lagu leeyahay subaxii markaad soo toosaad firfircooniga leedahay waxaad ku bilowdaa shayga kuugu adag eenad qaban karin. ka haddaad qabato wixii ka dambeeya dhamma kuu fudaanaya. marka daawade time managementiga waxaa ku muhiimsan inaad u samayso first thing first. waxa kuugu muhiimsan ku bilow. timeka xadid waqti kasta aad qabanayso, deadline samee. waxa kuugu adag ku bilow. waqtiyada aad nashiidka tahay wax qabadka waqtigaa ku badi. qodobkaasi waa qodobka koowaad ee marka laga sheegan wax qabadka ugu muhiimsan. marka timeka saad u maamusho waxay ku xiran tahay performancegaaga ku xiran. qodobka labaad waa maxay? energygaagu markasta oo daaqa aad leedahay, markastoo awoodaadu ay sareyso inaad wax qabato, waa markastood wax qabanayso. haddii energygaagu hooseeyo, daaqada kugu jirta hadday hooseyso, awoodaadu haddii ay hooseyso oo caajis aad ku jirto, waxba ma qaban kartid. maxaa keena haddaba qofka inay daaqadiisii awooddiisu hooseyso? maxaa keena? waxaa keena mid waa mid jidhkaabay noqon kartaa, midna mid nafsiya noqon karta. ta jidhkaa waxaa ka hurda la'aan.
haddaad habeenkii seexdo habeenkii aad soo jeedo oo tara subaxiiba wax qabanaya waa adagta awooddaada hoos baa u dhacaysa awooddaadii wax qabadka hoos baa u dhacaysa marka kow waa inaad hurdo fiican qaadata lambar 2 waxaa kaloo isna ka qayb qaata cuntada haddii aad gaajoonayso idin wax badan qabi kari maysid haddaad si xun u dheeragtana waa lamid oo caajis baa ku galaya marka cuntada markasta dhexdhexaad ka dhigaa lagu leeyahay qodobka saddexaad energy-ga ka qayb qaata waa jimicsiga markaasoo jimicsi fiican aad samayso oo jirkaagu soo jeedo oo garanaysa oo jimicsi samaysay oo markaasoo kor u kacayo energy-gaaga iyo daaqada ay kor u kacayso marka waxa lagu leeyahay waa in awoodiina aad leedahay oo daaqadaada iyo energy-gaagu waa inuu soo jeedaa wax qaban kara dhinaca nafsiyaadku qayb ka tahay iyadoo jirkaagu firfircoon yahay oo nafta xagga aad ku fiican tahay ayaa waxa dhici kartaba nafsiyaadkaagu inay tacbaan yihiin oo waxba qaban kareen taamkii waad haysataa wixii waad nidaamisay jadwal baad samaysatay haddana caajis baa kugu jira nafsiyaadkaagu waa tacbaan waay qaybaha ugu weyn waxaa ka qayb qaataa la yidhaahda iyadana qofku isagoo salbiyaad la kulma waxyaala naftaada runtii qalbigaaga wax yeelaya inaad la kulanto qayb bay ka tahay subaxii baad soo toostay adigoo nafis oo firfircoon baad soo toosto markiiba war baad social media had gashay sidaasaad u gashay oo markiiba waxaa kugu soo baxay muuqaalo aada xunxun oo cay iyo naqdi iyo dhaleecayn iyo waxaasaa kugu soo baxay nafsiyaadkaaga tacbaan bay ka dhigayaan akhbaar aanad jeclayn warar aanad jeclayn warar dad la laayay iyo dad muslimiinoo la gumaada iyo wax badan baa kugu soo baxay nafsiyaadkaagu tacbaan bay noqonayaan marka social mediaha aad gelayso subaxa hore total ma fiicna haddaad social media aanad ka baxayn marnaba waqtiga aad shaqada dhammaysatay hawsha aad qabsataa laga dhigtaa laakiin haddaad ku bilowdo isla markaaga qalbigaagii wanaagsanaa iyo firfircoonadii buu kaa qaadaya nafsiyaadkaagii tacbaan buu ka dhigayaa negative thinking wuxuu kugu abuurayaa negative inaad noqoto salbi baad noqonaysa oo nafsiyaadkaaga waxbaa gaadhaya sidaa dareed baa la yidhahdaa qofku waa inuu ka dheeraadaa social media wax qabad hadduu ka sheekaynayo waxaa lamid akhbaarta aadka u xun asxaabbaad leedahay asxaabtaasi waa salbiyiin waad la kula subaxii baad soo toosay adigoo nafis oo inaad wax qabato jeclo saaxiibkii koowaad aad la kulantay wuxuu ku yidhi maxaad qabanaysaa tiri waxaasan ka shaqaynayaa sugroor waxaa ku daali lacag lagama hele maxaa kugu dhacaya markiiba negative salbi waxa weeyaan qalbigaaga waxba yeelaysa hoos u dhac baa kugu imanaya iyo firfircoonida aad wadatay hoos buu dhacaysa waayo qofkan aad la kulantayba qof gebigiisa negative oo salbiya marka waxa lagu dadkana ka dheeraw laftigooda waayo iyaga nafsiyaadkaaga wax yeelaya marka nafsiyaadkaagu haddaanay runtii aanay si fiican u shaqaynayn oo aanay nafsiyaadkaagu aanay wanaagsanayn wax fiican qaban maysid sababta waxa lagu leeyahay waxyaalaha ka qayb qaata qofku inuu wax qabto oo performance wanaagsan la yimaado waxaa ka mid ah inuu runtii nafsiyaadkiisu ay fiican yihiin jidhkiisu firfircooni ku jirto energy uu runtii leeyahay ayaa ka mid ah haddii laakiin waxyaalahaasi aad weydo oo enerjigaaga hoos u dhaco oo taaqadaada hoos u dhacdo oo awoodda wax soo saarkaaga hoos u dhacdo sababtuna ay tahay nafsiyaadkaaga tacbaana iyo jidhkaaga tacbaana de waxba ma qaban kartid adigoo waqti fiican haysa wax ma qaban kartid qodobka saddexaad dawada ugu dambeeya wax weeyaan ee keensanaya inaad performance fiican la timaado wax qabad fiican inaad samayso injaaz cadiim ah inaad la timaado waxaa ka mid ah focus inaad meel awoodda saarto haddii time wanaagsan aad waqtigaaga geliso oo timekii aad nidaamiso isla markaana aad energy fara badan hayso firfircooni ay kugu jirto laakiinse aad rabto 100 hawlood inaad isku dhex wado meel ma gaadhis focus waa inaad leedahay saacadii iyo waqtigii kasta wax awoodda saar awoodda waxaan saaraya baad leedahay inaan qoraal maqaal qoro maqaalka u fadhiiso keligii ka shaqee laakiin maqaalkiina waan qorayaa computerkiina wax dhinac baan ka wadayaa shaqadii kale dhinac baan ka wadayaa telefoonadii waan xiriir baan samaynayaa hebel saaxiibka waa soo dhaweynaya wallahi wax qabanaya ma waxa lagu leeyahay focus yeelo halkii waqtiba wax awoodda saar maanta waxa tira waxaan ka shaqeynayaa waxaas saacadaha noocaas waxaan ka shaqeynayaa waxaas beritoole waxaas ka shaqeynayaa focus yeelo haddii aanad focus lahayn meel ma gaadhisid waa xaqiiqo la ogaaday weeyaan haddii aanad meel kaliya diiradda saarin oo qalbigaaga iyo maskaxdaada aanad halkaa meel u soo jeedin meel ma gaadhisid waayo tashatud baa kugu dhacay maskaxdaada way kala qaybsamaysaa kolba waxbaa kugu soo baxaya marka waxaa muhiima lagu leeyahay focus yeelo
shaqada aad subaxda u soo kacday ee rabta inaad ka shaqayso waa inaad tiraahdo koow waxaan ka shaqaynayaa shaygaas shayga awoodda saar meel saar markaad dhamayso shayga labaad u gudub ka markaad dhamayso ka kale u gudub saa shaqada u wada laakiinse hal shay kama shaqaynaya intaasoo shay baan isku dhex wadaya bishan waxaan wadaya intaasoo mashruuc 5 mashruuc baan isku dhex wadaya ma soconayso hal mashruuc bilow dhammee ka kale ku xogsii dhammee ka kale ku xogsii markaa waxaan ku soo koobaynaa haddii aad rabto inaad performancekaagu aad u sarreeyo injaas aad la timaado noloshan aad wax ka qabsato ama shirkadaaduba ay kor u kacdo iyo kambanigaagu saddexdaa shay awoodda saar inaad timekaaga aad nidaamiso inaad runtii energy fiican aad u yeelato shaqada oo waxyaalaha enerjiga hoos u dhigaya aad ka fogaato isla markaana focus aad yeelato meel awoodda aad saarto markaas wax soo saar fiican aad samaynaysaa